fikir kan qaldan oo dadka asalkiisii lagu dhigayo iskuulada iyo masaajida qaarkood oo kutuba lagu akhrin dhowr marna waa loo sheegay nimanka aaminsan waxa la fikirkan cudurka halkaan ka yimid kulankii waliba hore culimadu aad bay uga hadleen sanadii hore fikirkan halkaan ka socdaa fikirkan marka hore asaga cirib gooy adinka raggan soo saaray adinka u sheegay qofkaanu inuusan islaam ahayn qofkaani in uu maaratay waxa weeye uu yahay qof aan islaam ahayn oo dhiigiisu ku banaayay wana been يعني waxa weeyaan aniga hadda subxadan haduu ugu arko qofku u maleeyo gaal inaan ahay yani mabda qaladkiisa horta halkaas ka bilaabato mabda waxa ka soo bilaabeen hadda qofkan tusbax ku aragto waa gaal haduu salliga nabiga akhrinayo waa gaal haduu tawxiid akhrinayo waa gaal haduu nabigi amaano oo rabbi salli ala alxabiib oo yira waa marka hore qalad halkaas ka soo bilowday dadka nimankii sidaa u qalday wali ayagii naftu masaajidii jooga istawu oo kuuleeyahay kan markuu qarax sameeyna kaasna istawu kuuleeyahay marka waxa la rabaa in la iswaafajiyo oo Soomaalidu ay ogaato mabda'an khaldan ayadoon qof la xasdaa jirin oo qof la dacaayideeha jirin markaan rabno inaan kulligeen wada daawoono waa in dhowr meelood oo cuduradu ka yimaadeen la iska ilaashaa waxa horta dadka dilkooda loogu qaraabto mid koor ayaga naftooda kaarkooda marsada oo waxaan ognahay kaligood ummadda ma dilaan ummad kale oo rabta inay ama qabyaalad ku disho ama ninkan ay si kale u xasado magacoodi ku adeeganayaan waxay leeyihiin hebel waa la qarxiyay qarax boqol qof kala sameyn karta hal qolo ma sameeydo maalin walba dadka ma disho qof walbo laakiin marka hore magac diineed inay wax ku dilaan bilaabay oo ayagu ay ku caan baxeen magac diineed in wax lagu dilo lama ogola diintu ceeb ma leh nabigeena kaleey salaatu wasalaam diinta ilaahay noogu soo dhiibay waa diin nabadgelyo waa diin aan ku ogolayn hatta qofka inaad wax yar ka sheegto iska dhaaf inaad dishiye wax kuma dhifakartid ma xaman kartid maalkiisu waa ka xaraam dhiigiisu waa ka xaraam inaad been ka sheegto waa ka xaraam inaad masabeeta waa ka xaraam diin marka shay sida ku wanaajinaysa oo kulligeed raxmad ah oo naxariis ah oo nabigeena nooga tagay oo ilaahay noo soo dhiibay in lagu qaraabtay la yiraahdo waxaan waayii hore maqli jirnay marka umada la laayo oo hoteelada dawshay qutirinay dadka lagu dilo dadka dilay oo intiqaalku idaacada ka hadlay alxamdulillah bal fiiri isqaban mayso ilaahan mahadnaqaya inta qof muslim dhiigiisa daashadan ilaahay uga mahadnaqa bal fiiri dambigaas qofka waxa la yiraahda ilaahan u tooba keen asagoo dambaabaya wuxuu la mid yahay kal mustasi bi rabbi qof ilaahay ku ciyaarayo la mid yahay oo ilaahay ku jeesay cudur markuu yimaado cudurkan jiradiisa asalkiisa waxa ka dhalatay in la baaro ee iyada marka hore inta baarid lagu sameeyo la daweeyo ayaa ka horeeyda cudurka in marka hore baaridiisa la helo baaridiisi dadka qaar way u muuqataa fikirka asalkiisii wuxuu ka soo bilowday fikir qaldan oo diinahan u qaldan oo qofkan sidaana waxa diinahan ay u gashay ee qofka inuu dilo inuu janno oo soo ku helay isku haysta بعد ما آيات إلى هذا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم أصلا جهنم قال اسمه هيست خالدا فيها اسمه هيست وغضب الله عليه اسمه هيست ولعنه إن يكون عيد هيست وأعد له عذابا عظيما شنطان قضب آيات شيء يسوع ما بيقصيان بكليه أنا وقف كان عندي لي مسلم بماهم مركب فكر كان قلبا وضدك أصل كيسي lagu dhigayo iskuulada iyo masaajida qaarkood oo kutuba lagu akhrin dhowr marna waa loo sheegay nimanka aaminsan waxa la fikirkan cudurka halkaan ka yimid kulankii waliba hore culimadu aad bay uga hadleen sanadii hore fikirkan halkaan ka socdaa fikirkan marka hore asaga cirib gooy adinka raggan soo saaray adinka u sheegay qofkaanu inuusan islaam ahayn qofkaani in uu maaratay waxa weeye uu yahay qof aan islaam ahayn oo dhiigiisu ku banaayay wana been yani waxa weeyaan aniga hadda subxadan haduu ugu arko qofku u maleeyo gaal inaan ahay yani mabda qaladkiisa horta halkaas ka bilaabato mabda waxa ka soo bilaabeen hadda qofkan tusbax ku aragto waa gaal haduu salliga nabiga akhrinayo waa gaal haduu tawxiid akhrinayo waa gaal haduu nabigi amaano oo rabbi salli ala alxabiib oo yira waa marka hore qalad halkaas ka soo bilowday dadka nimankii sidaa u qalday wali ayagii naftu masaajidii jooga istawu oo kuuleeyahay kan markuu qarax sameeyna kaasna istawu kuuleeyahay
marka waxaa la rabaa in la iswaafajiyo oo Soomaalidu ay ogaato mabda'an khaldan ayadoon qof la xasdaa jirin oo qof la dacaayideeha jirin markaan rabno inaan kulligeen wada daawoono waa in dhowr meelood oo cuduradu ka yimaadeen la iska ilaashaa waxa horta dadka dilkooda loogu qaraabto mid koor ayaga naftooda kaarkooda marsada oo waxaan ognahay kaligood ummadda ma dilaan ummad kale oo rabta inay ama qabyaalad ku disho ama ninkan ay si kale u xasado magacoodii ku adeeganayaan waxay leeyihiin hebel waa la qarxiyay qarax 100 qof kala sameyn karta hal qolo ma sameeydo maalin walba dadka ma disho qof walbo laakiin marka hore magac diineed inay wax ku dilaan bilaabay oo ayagu ay ku caan baxeen magac diineed in wax lagu dilo lama ogola diintu ceeb ma leh nabigeena calayhi salaatu wasalaam diinta ilaahay noogu soo dhiibay waa diin nabadgelyo waa diin aan ku ogolayn xataa qofka inaad wax yar ka sheegto iska dhaaf inaad dishiye wax kuma dhifa kartid ma xaman kartid maalkiisu waa ka xaraam dhiigiisu waa ka xaraam inaad been ka sheegto waa ka xaraam inaad masabeeta waa ka xaraam diin marka shay sidaa ku wanaajinaysa oo kulligeed raxmad ah oo naxariis ah oo nabigeena nooga tagay oo ilaahay noo soo dhiibay in lagu qaraabtay la yiraahdo waxaan waayii hore maqli jirnay marka ummadda la laayo oo hoteelada dawsheequ tirinayay dadka lagu dilo dadka dilay oo intiqaalku idaacada ka hadlay alxamdulillah bal fiiri isqaban mayso ilaahan mahadnaqaya inta qof muslim dhiigiisa daashadan ilaahay uga mahadnaqa bal fiiri dambigaas qofka waxaa la yiraahda ilaahan u tooba keen asagoo dambaabaya wuxuu la mid yahay kal mustasi bi rabbi qof ilaahay ku ciyaarayo la mid yahay oo ilaahay ku jeesay